أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله الأعظم في أرضه القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي في الله، ما أنت وبشها تضبات أي تهي labada kun iyo labaatanka waxaan halkan ka bilaabaynaa kitaab yar ama qasiido yar oo uu iska leeyahay imaamkii afraad ee ummadda muslimiinta ah al-imaam Zaynul Aabidiin Ali ibn al-Husayn salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi, oo dadka qaarkood ay u yaqaanaan imaam as-Sajjad. kitaabka waxaa la yiraahdaa magaciisa laysa al-ghariibu ghariib ash-shaami wal-yamani. waxaa loogu magac daray qasiidada magaceeda oo beydka u horeeyay ayaa loogu magac daray. sida aan ognahay, qofku markuu wax nadmin hayo ama uu shicr hayo wuxuu leeyahay wasan ama baxar uu ku yimaado ayuu leeyahay. laakiin shicirku sida loo qoro oo sheekhi tadwiiniyay ee Sheekh Axmed Khaliil ahaa uu u tadwiiniyay wuu ka duwan yahay dhigaalka kale ee carabiga. oo waxa la yiraahdaa shicirku shay walba oo lagu hadlo waa la qoraa, shay walba oo aan lagu hadlinna lama qoro ayaa la yiraahdaa. bilmatalan ba hadii aad washamsi tiraahdo kale asha meesha ku jirto oo kale shicirka la qori mahayo. la qori mahayo asha iyada waa la tuuri oo waxaad qori wawgi iyo shiinki iyo miimki iyo siinki baad qori. asha waa laga tagay sida loo yeedhiyay ee loogu dhawaaqay baa laga qori yaa loo qori. tadciifka isaga waa maya. dadka marka yaqaan usluub ay u diyaariyaan baa jirto curuudta oo waa maxay xarakaad bay sameeyaan. xarakaadka iyada markay sameeyaan laba jiitimood oo hoos ah oo macnaha laba fatxa ah oo saa beydka hoostiisa loo qaabilin hayo. adu waxaa jirto kayfiya lagu garto oo qofku markii uu fannigan isaga uu ku noqdo maahir ama baaxir uu ku noqdo uu garan hayo. beyd walba marka waxa weeyo wuxuu ku yimaadaa baxarkiisu waxaa lagu gartaa dhigaalkiisa isaga ama qoraalkiisa isaga lagu sameeyay ayaa lagu gartaa. sheekhu wuxuu ku nidmay baxarkan loo yaqaano baxrul basiit. baxrul basiitku waxa weeyo mustafcilun faacilun ba waxaad celinaysaa afar jeer aad celinaysaa oo dhahaysaa mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun مستفعل فاعل مستفعل فاعل وانت ايضا. sababta ku kaliftay imaamku inuu qasiidadan iyo qasiidooyin kale badan oo leeyahay uu sababa waxay ahayd wuxuu la kulmay shidooyin iyo maraaxil iyada oo kale aan la soo koobaynin dhibaatadii uu la kulmay. wuxuu ahaa dadkii farakuturiska ahaa ee ka badbaaday gumaadkii ama xasuuqii loo geystay usradii qowskii rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayuu ahaa. wuxuuna ahaa imaamku waqtiga iyada marad wuu xanuunsanaa, ritigiisii iyo rukuubkiisina kamuusan soo degi karin oo aad iyo aad buu u xanuunsanaa. kadib wuxuu galay dadkii la qafaashay ee gacantii nimankii reer bani umayye ee acdaadi rasuulullaahi Muhammad iyo aalkiisa ahaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxa weeyaan ay gacanta ku dhigeen ayuu guda galay. kadibna waxaa la geeyay dhinaca iyo Kuufo oo ninkii halka xukumay ninkii la dhihi jiray Ubaydillah ayaa loo geeyay. markii loo geeyay ninka isaga ah ka bacdina waxaa loo sii raray majliskii oo loo sii qaaday majliskii uu joogay ninkii isaga ahaa marka wadanka xukumay islaamka hor joogaha u ahaa, laakiin aad ogeydeen fisqigiisa iyo gaalnimadiisa ummadda muslimiinta inaba aynan isku khilaafin. Yaziid ibn Muawiya la dhihi jiray xaruntiisii oo dalka Shaam ahayd Dimashq khaasatan ayaa imaamka loo sii qaaday. imaamka waxaa ku weheliyay dhowr qof oo dadkii la qafaashay ahaa oo aalu beydka ka soo hadho aad iyo aad u yaryaraa iyo eedadii Zaynabat al-Kubra salawaatullaahi wa salaamuhu alayha ayaa ku wehelisay. imaamku marka insha Allah waxaan ku sharxi doonaa taariikhdiisa ayaa waxaan ku dhex sharxi doonaa biidnillaahi al-baari qasiidada taariikhdiisa oo kooban oo muujiz ah. laakiin imaam Zaynul Aabidiin waa kee al-imaam Zaynul Aabidiin Ali ibn al-Husayn waa imaamkii afraad ee ummadda muslimiinta ah, khaasatan ummadda loo yaqaano ash-Shiica a'la Allahu maqaamahum. waa imaamkoodii afraad oo waxa ka horeeyo
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمام علي iyo imaam al-Hasan oo adeerkii ah iyo imaam al-Husayn oo aabihii ah imaamkii afraad weeyo al-Imam Zayn al-Abidin Ali ibn al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi wa huwa rabi'u al-a'immati 'inda ash-Shi'a weeyaan Zayn al-Abidin magaca la dhahay isagu uu iska leeyahayna waxa weeyo alqaabtiisa kan ugu shuhraysan weeyo imaamku waxa lagu dhalay magaalada Madiinatul Munawwara oo loo yaqaano taybatu rasuulillahi al-a'zam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayaa lagu dhalay waxaana la dhalay maalin jumco ah oo bisha shacbaanna ay baaqi ka tahay 5 maalmood ay baaqi ka tahay sida uu sheegay sheekh aimada shiicada kamida wuxuu cadeeyay sida ibn Taawus iyo mashaayikh fara badan oo kale saaxibul misbaax iyo intaba ay cadeeyeen mawlidkiisa iyo imaamka la dhalidiisu waxay ahayd buu leeyahay bisha loo yaqaano jamaadul awwal ama jamaadul ula inagu u naqaano waxa weeyo bisha iyada an niskeedi bartankeedi 15keedi baa la dhalay buu isagu leeyahay sidaas oo kale wuxuu leeyahay imaamku waxa la dhalay ninka loo yaqaano ibn Taawus waxa la dhalay buu leeyahay bishaasi jamaadul awwal aakhirkeedi dambe 15keedi dambe dhaxdiisa ayaa la dhalay buu leeyahay sanaduna waxay ahayd marka iyada soddon iyo 8 ilaa waxa weeyaan 37 ilaa 36 sida la isku khilaafsan yahay waxaana la dhaxdhalay marka iyada wilaayadii iyo khilaafadii amiirul mu'miniin al-imam Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi oo jadkiisi ahaa dhaxdiisa ayaa la dhalay ummadda muslimiinta ana wuxuu ku leeyahay makaano iyada oo kale aan la soo koobi karin marka insha Allah taariikhdiisa waxaan ku dhaxwadi doonaa biidnillahi al-bari oo muujiz kitaabkiisan yarka ee laysa al-gharib بحرك وكوكانين وحوي وبحرك عن شغني ولا يراهدو بحر البسيط كا ومستفعل مستفعل فاعل مركب وحكوب بالله هي ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن سفري بعيد وزادي لن يبلغني هل كاسي نسخدني كتكتي أنا هيو بيت باكوجرو لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن مركب وحكاها الله يا إمامكو دتكو أنت بدن waxay moodaan zuhdi iyo tasawuf maadaama oo fannigan isaga zuhdiga iyo tasawufka uu ahaa al-imam Zayn al-Abidin Ali ibn al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi fanni uu ku caan baxay uu ahaa hadda meeshaasi arintu ma aha waxa weeyo waxa ku jirta halkan uslubul hakim wax la yiraahdo dhibaatadii ku dhacday ee aalubeydka loo geeyay iyo isaga dhibaatadii loo geystay iyo awlaadii waxa weeyaan walaaladii iyo aabihii iyo adeeradii iyo awlaadii adu rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dhibaatadii loo geystay ayuu wuxuu ooga waramayaa si toos ah laakiin dadka inta badan waxay u qaataan in uu ka waramayo zuhdi kaliya oo khaas ah zuhdigu uu dhax socdaa oo waa kamid laakiin arinta u badan ee imaamku uu ka hadlayo waa mid iyada وحول مركز ليس الغريب متك غريب كأمها غريب الشامي شام غريب كذا يا واليمني يمن يا شام متك أنتو أسفر غريب ككوه معها دتكم مركز وحي مودة هيان شام يا يمن إلا أنا إلهي بالقرآن كيس رحلة الشتاء والصيف يري وحي مودة هيان مركز سفر ذي النوع يا شام يا يمن كلية معها إمامك وحوي يمركو كسب حي مقال ذا مدينة المنورة طيبة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحال وقبتي آلك رسول الله محمد أنت كلام مركي لو جم هذا إسجا إيو إددي إيو وحلو قبتي أرض العراق نحذ هذا إياه لو قبتي طف مجالنا اللي هذا أما كربلاء هالكاس لو قبتي كبعد وحلوسي قاضي إمامك إيو أهل كيسي أو لقفاشتي مش اللو يقانو الشام أي الله سي قاضي مرك إمامك وكه الله هي ودبات هذا إياه مرك وحليه هي وحو حسوسا هيا أما وتمنيه هيا إن النقض إلهي بان أقدرين إنه هذا وحؤات السجع ليسين هي قفك وجوه الريي أبيه وحويان أميرك ومد المسلمين ويلك رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إمام الحسين سيدا حقيقة إلا ني أسلوب ونبينا النوجت تجي أو تمسك أبا جري أو قبس شذا آل بيت كإنه أيجو ومرأي يجو أيهين ويجا اللوجت دم بيو يجا كتاب كقرآن كإنه كلا تجين سيدا سو حقوقها أبيه هو جاميها ومد المسلمين مركا وحق أبيه كدو لنا وحي هيد ظلم جي أي قلذي وحويان ريب بني أمية وحويان ربك بطنا أعداد رسول الله
محمد يا آل كيسي ومد مسلمين تأبى جبي أهم بأها dhibkii ay u geysteen aalubeydka ay ku hayeen ayuu aabihiina ka dhiidhiyay thawra marka aabihii uu bilaabay ayay ahayd marka imaamku wuxuu jeclaystay in uu shahiido oo uu kamid u ahaado ragii ku shahiiday amaama aabihii ku shahiiday inuu kamid ahaado ayuu aad iyo aad u jeclaystay marka wuxuu yiri laysa al-gharib midka gharibka ma aha غريب الشام شام غريب كذا معها متك شام غريب ككوه إيا واليمن يمن متك غريب ككوه معها إن الغريب متك غريب كوحة ويان بولاهي غريب اللحد لحد كمتك كلجي يكون نقضه إيا والكفني كفن كمتك كلجي يكون نقضه متك إيا أمانتا وحوك خير بدن يهي أو إمامك وتمنيه هيا متك لهيو isaga waxa weeyo hadba meel la istaajin hayo midka isaga ah waxa ka khayr badan oo waxa weeye ka wanaagsan midka luxudka iyo kafanka waxa weeye qariibka ku ah ee amaama aabihi ku shahiido maadaama dad yar yar oo dadoodu ay aad u yar tahay oo waxa weeyaan bila xitaa jiro sanada jira halka iyada ay ku shahiideen amaama aabihi ay ku shahiideen markii la go'doomiyo xitaa biyo inay cabaan intaas oo maalmood loo diiday وحول إن الغريب متك غريب كله وحأسقنا ذي غريب كإسقى حق بأسقنا ذي واجب وإسكله هي باجرو متك غريب قفك غريب كأسدي سبب وحوله هي واجب حق بوله لغربته بنا أوسقنا ذي كل النمذيسة غربذيسة أيا وحكوله هي حق إسقوا مأوسن هلين حق حتى مركا غريب لماذا أكلها الإمام زين العابدين علي بن الحسين مأوسن هلين ماشي أو سناديدي أي فرضو يا مدحيوينتي إسلامك وحويان كإنحرافي يزيد بن معاوية يا مجلس كيسي أيا وحكس كجيدي إمامكو خطبة إنه أغريدون بإذن الله الباري يا أراهي عجيبة إسجا إيو إددي زينبة الكبرى صلوات الله وسلامه عليهما مدولبا مركزات كميش الجوجي وحيلا يابين بلاغذو ذا iyo aftahanadooda iyo ka kanaanshahooda sida ay ugu adag yihiin diintii awowgood rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam marka wuxuu yiri in al-ghariba midka gharibka ah lahu waxa u sugnaaday gharibka isaga xaqun ba u sugnaaday oo li gurbatihi u ahaaday gurbadiisa ala al-muqimiina ayuna kuleeyahay kuwa nagi fil awtaani wadamada kunagi iyo wasakani meelaha qaryooyinka ee magaalooyinka kuwa kunagi ayuu imaamku wuxuu kuleeyahay xaq marka wuxuu yiri la tanharanna hagulgulin qariiban mid qariib hagulgulin isaga iyo ehelkiisa inta ka soo haray ayaa waxa lagu hayay weerar aan kala go' lahayn iyo gulgul aan caadi ahayn iyo nasligoodii oo hortooda ashcaar lagu qaadahayay oo la lahaa maanta hadii ay waxa weeyo odayaashaanadii hore ee horay u soo cutba iyo nimankii ay waxa weeyaan awowgi imaam Ali iyo waxa weeyaan imaam al-Hamza iyo al-Imam Ubaydullah waxa weeyaan Ubayd ibn Harith ibn Abd al-Muttalib ay ugu geysteen qoyskan isaga reer Bani Umayya ah ay ugu geysteen dagaalkii la dhihi jiray waxa weeyo Badr ay ugu geysteen يولها هذي ما أنت أركل هايين يزيد أنتو أشعار تريي سيدا أن أقل ما أنت رسول الله محمد يآل كيسي ويلقبوسن لهايين بوليه وحين أديه لهايين يزيد وقعنت هذا ما أنجكتو إلهي نكرها كوق هذا إديه لهايين بوليه marka imaamku gulgul kaasu ka hadlaya markaas wuxuu yiri la tanharanna gulgulin qariiban mid qariiba gulgulin xaala gurbadiisa xaaladeeda gulgulin kalinimadiisa xaaladeeda midku markuu qariib ka yahay waxba gulgulin ad-dahru zabanka ayaa yanharuhu gulgulahayo oo bidhulli ku gulgulahayo iyo wal mihan shida ku gulgulahayo midka waxa weeye qariibka waxa gulgulahayo dahriga zamanka iyo waxa weeyaan waqtiga zamanka dhaxdhacahayo ayaa gulgulahayo waqtiga dhaxdhacahay ayaa gulgulahayo la tanharanna gulgulin qariiban mid qariibaha gulgulin xaala gurbadiisa xaaladeeda gulgulin ad-dahru zamanka ayaa yanharuhu gulgulahayo bidhulli ku gulgulahayo iyo wal mihan ku gulgulahayo shidooyin bu ku gulgulahaya in al-qariiba midka qariibka lahu waxa uu ahaaday qariibka isaga xaqun ba uu ahaaday li gurbatihi buna uu ahaaday kalinimadiisa darteed bu uu ahaaday ala al-muqimiina buna حقا يدا كلها كوا كنجي في الأوطان ودمدا كنجي إيا والسكن تولوين كوا كنجي لا تنهرنها جولجول غريبا مد غريبها جولجول حال غربته كلين مدي سحالة ده جولجول الدهر زمن كأيا ينهره جولجول هيو بالذل كجولجول هيو إيا والمحاني عشر كأن ما أنت أيدا أيو إنه أهان هيا وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.